بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan halkan ku qabanayaa xaqiiqda maanta ee Soomaaliya. laakiin ma joogno Soomaali weyn Allah yow wadankeenu ruuxis eryaaya kii abuura uu ahaado afarta waaxood iyo umuurku kii Israaca uu ahaado waa dhamaatay waxaas adaa lagu yiraahdaa dawlad waa la kale waa ku faraxalanay waa gogoynay waa tuurnay okay waxaan u go'nay maamul goboleedyo yar yara oo maamul goboleed walba uu qabiil isku raacayo way isku dhiiga oo isku daro oo isku dada ayaga qusaysan la Allah annagu waxana la yiraahdaa maamulka Puntland baan hawriyaa ceelka xunka ah oo baaxay ku yaalo oo galmudug ay madaxweynaha iyo dawladda u samaysatay ayaga qusaysaa waxa gudbimayno magaaladu ha kala baraato barkooda cadaaladdaas bal fiiri adugu ha qaataan anaguna barka yaga iyo inta kale tan iyo bari baan bawfaa walaalaha iyo harti waa dhammaa Somaliland baa ku soo hadhay warqabta inay dad harti xoog ku qaado ku qaadi maysaan qabiilkiina isaan yeesha waxiina moogta cadaaladda ha tagina wariyaha waxaanayna qoronka waxaa soo haray Puntland gudaheeda waa la kala badan yahay wariyaha madaxweynaha ma jeertaanka xalay walaalaha iyaga hartiga iyo daaroodka kale leelkasa iyo oftama iyo walaal carab sax waxooda ku warwareegaan xukaaho madaxweyne ku xigeenka iyo waxay isma istaag isma sharxi karaan madad waxaa soo haray walaalaha koonfurta lix gobol hadaa rabtaan qaata صدح دار قاطع إذن كي إذن تروى فضل إذن شيء هي شغلكم عليه وحاس عنه عدالة ده منطق مقطع وحقيقة منطق صومالي السلاس وين أقولتين واحد حاطين إنسان صومالي إذن كي يفهم ليش دور إنسان إذن كي يقال قبيل بقوا صريح ما يقول